مدحوينه جمهورية فدرالية الصومالية وكان وصوب حي مروا بهضيها ساعة والوحيد سوا مدحوينه بنتلان وكان ciao 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 ورنا فقط محمد شهلاوي كابتنو باورك دمي باورك دمي باورك محمد محمد أغاقلي دمي باورك باورك دمي عبد السلام قال أحمد سوى واحد محمد دمي إيه كامل صدق بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan maanta sharaf weyn inoo ah inaan halkaan ku soo dhaweyno madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo booqasho loogu yimid madaxweyne ku soo dhawow Puntland oo adigana ku jecel Soomaalnimada jecel ku soo dhawow dadka reer Puntland waxay diyaar u yihiin inay kugu soo dhaweeyaan qalbi furan iyo gacmo furan xaaladda ay ku sugan yihiin iyo horumarka ka socda iyo dowladnimada ka jirta aad aragto la qaybsato talooyinkaaga iyo fikirkaaga dowladnimada diyaar u ah inay dhegeystaan ka qayb qaataan horumarka Soomaaliya geed socodka nabadda Soomaaliyeedna ay kugu taageeraan si Soomaaliya ay u gaarto qarannimo dowladnimo hagaagsan nidaamkii iyo horumarkii Soomaaliya lagu aqoon jirayna iyo galeerideeda diyaar u inay ka qayb qaataan madaxweynuhu wuu la joogayaa muddo dhowr beri ah arki doona dalka iyo nabadda ka jirta iyo nidaamka dowladnimo ka jirana marka madaxweyne ku soo dhawow Puntland. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan halkan socdaal ku joogo magaalada Garowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland iyo madaxweyne adiga iyo dowladdaada sida sharaf leh oo wanaagsan ee aad noogu soo dhaweyseen aniga iyo wafdigayga xaqiiqatan laba jeer hore ayaan baajinay duruufo shaqo awgeed maanta aad iyo aad ugu faraxsanaynaa intaasoo qof oo Puntland Garowe sidaas wanaagsan noo soo dhaweeyaan oo ay jidadka qalinaadaan oo calaamaha qoyan ay nagu soo dhaweeyaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa aad iyo aad ugu faraxsanahay halkan waxaan u imid inaan arko suu sheegay madaxweynaha xaaladda hadda ka jirta kow ka tahay inaan xoojino nabadda aan xoojino oo aan ka shaqeyno dib u heshiisiinta waxaan jeclahay inaan tago dhowr magaalo oo aan dadka la kulmo oqaasha salaadiinta dadka maxaan ku rahdaa aqoon-yahanada civil society-ga jaamacadaha ardada dhigta guud ahaan inaan la kulmo oo ay la wadaagaan iyaga naftigooda waxa meeshaan ka jira aniguna aan la wadaago taladeeda iyo waxa aan ku biirin karo insha allahna wax badan ayaan midaysan haddii la yiraahdo waxaan kusoo gabagabeynayaa runtii waa soo daahay reer Garowe iyo Puntland raalli ahaadaan waa soo daahnay waxaan u dhahay duruuf shaqo awgeed insha allahna waa kusoo noqonaynaa aniga iyo dowladda federaalka insha allah haddii la yiraahdo waa mahadsantihiin madaxweyne hal su'aal ayaan jeclaan lahay wadani waa la yiraahdaa Puntland intii aad ra'iisul wasaaraha soo ahayd ilaa iyo hadda aad madaxweynaha dalka ahayd dad badan baa isweydiinayaan ma markii ugu horeysay oo Puntland uu yimaadaa mise noloshiisa oo markii ugu horeysay Puntland nolosheeda markii ugu horeysay waay هاي بافو كرفوك سو قال
aad baa mahadsantihiin sida wanaagsan aad nala socoteen warkii waa idiin dhammaynay shaqadiina waa idiin dhammaynay anigana iisoo mahad celiya halkaan war waxaa ku daawanayseen si yar oo fudud marka saaxiibayaal kulan dambe ayaan idiin rajaynayaa aad baan idinka mahad celinayaa sidaad ila socoteen muuqaalkii ku daawanayseen insha allah kulamo dambe ayaynu ahaan doontaa dhammaantiin maalin wanaagsan iyo shaqo wanaagsan ayaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu